العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم لك الحمد حمدا حمدا والشكر لك شكرا شكرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأدخرها عدة عند الله ليوم الدين. وأشهد أن الحلال ما أحله الله وأشهد أن الحرام ما حرمه وأشهد أن الدين ما شرعه وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأشهد أن الله يبعث من في القبور وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله فصلوات ربي وسلامه عليه ما هطلت الغمائم بتهتان المطر. إلهي بقى سبحانه وتعالى ما هذا ما أنت تسكله marka labaadna waxaynu mahad celinaynaa runtii muasasada aflax oo dhowr jeer runtii mawduuca iyo ka hadalkiisa waxa weeye codsi ahaan ila wadaagay. waxaynu kala mahad celinaynaa maamuus oo iyaguna runtii hoolkayna siiyay intuba waa mahadsan yihiin. mawduuca iyo sida uu ahmiyad u leeyahay iyo lafdhabarta ay haweenku u yihiin ayaan isku dayi doonaa inaan runtii dul istaago wala waqtiga la shaaciyay iyo diyaar garowga runtii ay koobnaayeen, laakiin inta uu gaadhayo waxa weeye fariintu ay gaadhaysaa baa runtii insha Allah taala aan rajaynaynaa inay markaa waxa weeyaan ay wax ku qaadan doonaan. waana baahi weyn oo runtii maanta aynu baahi weyn u qabno. waxaan u soo noqonayaa marka mawduucan haweenka iyo adeega bulshada. sababta aan u doortay waxaan ka shaqaynayay muddo 10 sanadood ah ama 12 sanadood iminka adeega bulshada. cidda lafdhabarta oo adeeg bulsho oo dhamina waa haween. bal islaamku halka uu dhigay haween iyo meelaha ay ku qumi karaan ee ay shaqo ka qaban karaan baan isku dayayaa marka inaan daqiiqado kooban ku soo koobo. hal su'aal, dumarku waayo yaa dumar la yiraahdaa? waa annaga ayaa soo wadataan soo ma ya طيب طبعا dumar waa idinka waa run, laakiin su'aasha aan wada waxa weeye bulshada maxay ka yihiin dumarku? culimadu way isweydiiyaan qolo waxay yiraahdeen haweenku waxay dumarka bulshada ka yihiin 50%. soo sama bulshada maxay u qaybsantay? rag iyo dumar soo ma wax saddexaad ma jiraan. dadku waa labadaas soo ma imika xolaq gaalada waxay wadaan wax saddexaad oo aan jirin inay sameeyaan. qof aan nin ahayn gabadh ahayn meel dhaxaa. طيب waa rag iyo dumar. marka sida loo yiraahdo dumarku imisay ka noqonayaan bulshadii? 50% bay noqonayaan. culimo kale waxay yiraahdeen may waxay yiraahdeen dumarku waa 100%. bimaana bulshadu waa dumar. 50 iyaga ah, 50 ka kalena iyaga dhalay, iyaga la dhashay, iyaga u dhaxay. maadaama ay sidaa tahay waxay leeyihiin bulshadu waa dumar. 50 waa iyaga, 50 ka kalena iyagu baa keenay. taasoo macnaheedu yahay haddii haween hagaago bulshadii oo dhami way hagaagaysaa, haddii haweenku xumaadana bulshadii oo dhami way xumaanaysaa. waana sababta maanta ay isugu dayayaan gaalo iyo gaala raac dagaalka ugu badan ay ugu jihaynayaan sidii dumarka loo fitnayn lahaa. in marka waxa weeye dumarka la xiraka weydaariyo. sababtu waa maxay? haddii iyagu xumaadaan cid hagaagaysa ma jirto. rag oo dhami hadduu isu tago haddii haweenku xumaado bulshada way u dhamaatay. iyagoo marka halka ka duulaya waxay yiraahdeen bulshadu waa haween. طيب qodobka labaad, haweenku taariikh ahaan waxa laga yaabaa muxaadarooyin badan oo waa dhageysateen Soomaaliya ku saabsan islaamkii halku haweenka dhigay
laga yaabaa maalin walba waa maqashaan islaamku adigoo hooya intan uu ku siiyey, adigoo walaala intan uu ku siiyey, adigoo inana intan uu ku siiyey, waa laga yaabaa inaad in badan maqasho. laakiin su'aashu waxay tahay haweenku dunida waxay yidhaahdaan al-ashyaa'u bil-addaadi tucraf, wax kasta waxa ka soo horjeedaa lagu gartaa. imka habeen maxaa lagu garanayaa? haddii aanay maalin jirin habeen miyaynu garan lahayn? haddii adduunyadoo dhamme ay habeen qura un tahay. ayib, casaanka maxaa lagu gartaa? marka lagu leeyahay heblaayo waa caste, maxaa lagu garanayaa? dee waa inay mid kaloo madoobi jirto soo maaha de, ama maariini. heblaayo way dheertay marka lagu leeyahay maxaa lagu garanayaa? waa in mid gaaban la soo helo. heblaayo way dhuubantay marka lagu leeyahay maxaa lagu garanayaa? waa in cagsi. marka waxay yidhahdaan dunida waxa lagu gartaa shay kasta shayga ka soo horjeeda. marka waxaa laga yaabaa inaad in badan maqasheen haweenka iyo islaamku halka uu dhigay, laakiin si aad u garatood u dhadhansato islaamku halka uu ku geeyey waa inaad garataa ummadaha kale halkay dumarka dhigeen. taariikhda ayaa rabaa marka inaan dib idinku yar celiyo daqiiqado. waxaa laga yaabaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la soo saaray 1400 sannadood ka hor, laakiin dee duni baa ka horreysay, xadaaradaha dunida ka horreeyey, kulligoodna dumar way joogeen. marka dumarkaa marka la soo maray, su-aashu waxa weeyaan iyagu siday ula dhaqmi jireen. markaa kadib baa markaa waxaad ogaanaysaa islaamku waxaanuu siiyey dhadhanka ay leeyihiin. matalan xadaaraddii Griiga taariikhdooda qoran marka dib loo eego waxay yidhaahdaan haweenku waxay la macno yihiin camal shaydaan bay yidhaahdaan. gabadhu waa camal shaydaan. waa su-aal ay isweydiiyeen. waxaanay ula mid ahayd ninkii Soqraad la odhan jiray ama faylasuufkoodii weynaa ayaa waxa uu leeyahay gabadhu waxay la mid tahay geed sunaysan, dusha sare ka qurux badan, haddiise midhihiisa aad cunto aad ku dhimanayso. bimacnaa wuxuu leeyahay waa fitno haweenkii. laba, qolada la yidhahdo romaniska waa taariikhda dunida xadaaradihii soo maray, su-aal bay iyagu isweydiiyeen. waxay yidhaahdeen dumarku horta ma noola mise waa ma noole? su-aashaas isweydiiyeen. laba, dumarkan waynu aragnaa una ruuxi ma ku jirta ay nala midi, raggii baa saa u hadlaya. waxay leeyihin ruuxi ma ku jirtaa mise kuma jirto? dood bay ka keeneen. waxay yidhaahdeen marka waa in dee la hubiyo in ruuxi ku jirto iyo in kale. sidee loo hubinaya? waxay yidhaahdeen waa in saliid kulul la kariyo, kadibna dumar la keeno, lagu shubo, bal la eego inay damqanayaan iyo in kale. waxaan ima qalfoofuun baayoo ina hor taagtaagani tolow mise waa dad ruux iyo bani aadam nool? taas bay markay isweydiiyeen. ayib, qolada saddexaad oo qolada Chinese-ka la yidhaahdo, iyagu tusaale u soo qaateen haweenka. waxay yidhahdeen haweenku waa waxa keliya ee qofka bani aadama farxadda ka qaada. waxay la mid tahay bay yidhaahdeen masku qaniinay ama biyo kululoo lagugu shubay. intubana waa wax qoran. qadiyadda qolada afraad waa hindida. way jiraan Soomaa qoliya qaar filmaanta hindida daawan jiray, way jiraan Soomaa. ayib, filmaanta hindida marka dadku dhintaan maxaa la sameeyaa? waa la gubaa Soomaa. filmaanta qaarkood waxaad ku arkaysaa ninku haddii uu dhinto waa la gubayaa, gabadhiisana waa lala gubayaa. caqiiday asalka ku haysaa. sidaa awgeed hunuuddu waxay yidhahdeen gabadhu ama hindidii hore, gabadhu xaq uma laha inay noolaato haddii ninkeedu dhinto. sidaa awgeed isla looxaanta lagu gubayo ninka waa iyadana la raaciyo, ma hadhi karto. halkaasay markaa iyaguna ka taagnaayeen. ayib, waxaa kaloo iyaguna markaa dunida soo maray nimankii beershiyaanka la odhan jiray. iyagu warkoodu war uu soo dhaafay. beershiyaanku waxay yidhaahdeen ninku waxa uu xaq u leeyahay inuu guursado hooyadii, inuu guursado walaashii, inuu guursado inantiisa. bimacnaa haweenku agtooda qiimo lagu qiimeeyo kuma ilaahayna gabadhay gabadh matay bay u ahayd. marka ninku waxa uu guursan karaa hooyadii ama walaashii ama inantiisa ama iyo wixii la mida. ayib, qolada ugu dambaysa taariikh ahaan
وعربتي جاهلية ده نبي محمد صلى الله عليه وسلم انتان لا soo saarin ka hor qoladii noolayd kuwa hore hadad la yaabaneydeen iyaga laftigoodu kama liidan carabtii waqtiga noolayd ilaahay subhanahu wa ta'ala sawir aad u la yaab badan ka bixiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku leeyahay wada bushara ahaduhum bil untha ayada wada maqasheen sooma bushaaru ilaahay ku tilmaamay inani markay ku dhalanayso waa bushaaru marka loogu bushaareeyay inan baa dhalatay ayuu wadnu dhici jiray dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim wajiga madoobaan jiray baa ilaahay subhanahu wa ta'ala iyagoo waliba cadaysan maxay sameyn jireen yatawaara min alqawm way dhuuman jireen ninkii inaan u dhalataa meelaha rag isugu yimaade ee lagu kaftamo muu soo fadhiisan jirin yatawaara min alqawm min suu'i ma bushira bih sida iyagu u haystaan waxan loogu bushaareeyay ee ah inaan u dhalatay xumaanteeda awgeed meelaha la isugu yimaado waa ka baxsan jireen ma iman jirin طيب maxaa talaa marka laba go'aan waa inuu ninku midun qaato ilaahay baa sii sheegay ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fi turab labada go'aan waa inuu mid qaato waa in sharaftii uu waayay uu ku waayay inaan u dhalatay waa inuu soo ceshado oo intuu inanta qaado uu aaso maalintuu soo aasaabo dabeetana isagoo madaxa kor u taagay soo noqonaya wuxuu leeyahay arinku man ceebtiis ka soo reebay aan idin la sheekaysto ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fi turab ama go'aan labaad waa inuu qaato waa inuu iska daayay inanta isaguna noloshiisa uu dulli ku noolaado ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ala sa'a ma yahkumun waxa ay xukumeen foolxumadiisa baldaya baa ilaahay subhanahu wa ta'ala tayib iyadoo xaaladdu halka marayso oo ilaahay subhanahu wa ta'ala inooga sheekeynay wa idha al-maw'udatu su'ilat iyadoo la aasayo bimacna waxay yiraahdaan waxa ugu weyn ee gabadha ay heli kartaa xuquuqda nolosha horta inay noolaato imika waxyaabahan kale in isku haysano waa meel soke inay wax baratay inay shaqaysatay inay wax qabatay waxan waa meel dhow horta nolosha hadii aan lagu ogolayn ka war waxan kale ma iman karaa maya sida ogeed baa rabbi subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay waxa ugu weyn ee la isku haystay waxay ahayd horta noloshooda inay noolaan karaan baa la isku haystay xuquuq kalena ma ilahayn waa la dhaxli jiray dhaxal lama sii jirin iyaga la dhaxli jiray اللهم صل على محمد وقتigaas adag iyagoo ku jira rabbi subhanahu wa ta'ala nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam soo saaray kolkaas rabbi subhanahu wa ta'ala diintani halkay ka bilowday ilma marka lagu siinayo wiil iyo gabadh rabbi wuxuu horeysiyay haweenka yahabu liman yashaa'u inathan wa yahabu liman yashaa'u inamadii baa la dambeysiyay halkaas islaamku ka soo bilaabay si loo muujiyo war waxa la bixinayaa waa hibe ilaahay arsaaqda ilaahay ku siinayo wiil iyo gabadh waa isku mid waliba gabadha horeysa arrin ajiiba laba markay dhashaan baa rabbi subhanahu wa ta'ala hadana waxa uu gaarsiiyay oo nabigu kaleey salaatu wasalaam inoo sheegaya qofka laba hablood koriya ee tarbiyeeya ilaa inta ay ka qaangaadhayaan ee mas'uuliyadiisa ay ka wareegayaan nabigu wuxuu kaleey salaatu wasalaam aniga iyo isagu jannada rafiiq baan ku noqonaynaa laba hablood saddex buu nabigu ka bilaaba markuu saddex sheegay bay gabadh ku tir rasuulka ilaahay bal qofka laba haysta ka warno labana waa ku daray nabigu kaleey salaatu wasalaam 20 wiil hadaad korisood kobcisood ku dadaasho nabi maxamed ku rafiiqdo ku heli maysid laakiin laba hablood baad ku helaysaa islaamku halkaas uu gaarsiiyay islaamku waxa uu gaarsiiyay iyadoo walaala inay cirdi iyo sharaf noqoto oo lagu daro shanta arimood ee ugu waaweyn ee qofka muslimka uu ilaashado aqligiisa iyo diintiisa iyo xoolihiisa iyo marka la ilaalinayo waxa kamid ah sharafna maxaa ugu mudan gabadh baa ugu mudan walaasha baa ugu mudan waayo maanta ninka lagu dhici karo in isagoo nool walaashii hortiisa lagu maaga ama lagu xumeeyo waayo ninku uu qaadan karaa in la caayo uu qaadan karaa in la maago uu qaadan karaa in la ihaaneeyo laakiin cidi kuma dhacdo walaashii hortiisa
ama xaaskiisa hortiisa ama hooyadii hortiisa in wax lagu yeelo ma taymise ma طيب atande Soomaalidu tiraahdo awr wado Soomaalidaan maqal maansada xagga xunun baynu ka fasirnaayo waxaan idhaahnaa ninka hadii gabadha kugu soo dirto cidi ka celinaysa waa dhab waayo de gabadha sharafa nin gabadha kugu soo dirtay inuu indhabeelo oo labada lugoodba ku jabiyo xaq buu leeyahay طيب bari dhaweyd baan hablaha nuxudhigayba waxaan weydiiyay Hargeysa meesha idinku dhib badan inaad martaan waa halkee baan ku dhig halkee idinku dhib badan inaad lugaysaan suuqa Soomaa bacadla sagaal saqajaan oo tuulo joogo oo meelaha laga keenay baa ka buuxa qaarkood oo inana laaliyo intii soo marta daraf ku dhigay Soomaa kor hadii walaalka kula socdo ya xawalaynaysan arkay weeyaa Soomaa hadda adoo sanka taagayaad marays afar cishaad soo martay isagoo lagu dhibay maalinta damad walaalka ama odaygaagii ama aaba soo kaxaysanaysa markaad soo marto adoo gacanta haysta doqon kasta kuma soo walaacayo muxuu ogi waxa ku dhacaya Soomaa hadda laga yaabaa ilmaha yare walaashaasi wadato 10 jir xataa ha noqdo 12 jir ha noqdo waa ninu kuluu ninka walaashii la hadlay dhagax ku dhufto oo dakhrana wuxuu buu sameeynaa soo sama طيب sharaf waa walaal islaamku wuxuu gaarsiiyay xaas markay noqoto inuu yiraahdo istawsu bin nisaa khayra warina ragow dumar wanaag u dardaarma halaga yaabaa marka qaarkood baan sheegaa filmaanta hablaha ku badan musalsaladan jacaylka aad loo daawado jacayl islaamka ka weyn ma jiro meelahaas in ku daawana Soomaa aktarko intuu aktarada raaco cunto hudheel cunto ugu sameeyay wax saas oo kala Soomaa nabiga kaleey salaatu wasalaam bal halku gaarsiiyay u fiirso wuxuu leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam midkiin rag uu la hadlaya isaga iyo xaaskiisu iyagoo cunto wada cunaya hadii inta uu hurma qaado uu afka u geliyo xaaskiisa ajar buu ku helayaa sadaqo roman sinima halka ka dambaysa miya garanaysa cuntada uu afka ugu gurayo sida boqorada inay labada gacmood laabato oo iyadu cuntada xataa faraheeda ku cunin ee isagu afka ugu guray isaga abaal ku qaba ajar buu ku helayaa waxa islaamku gaarsiiyay hadana iyadoo hooya xadiidkii nabiga kaleey salaatu wasalaam oo wada haysan Soomaa